Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aad habeenimo kasta oo sibti ah waqtigan oo kale aad si toos ah uga daawataan TV-ga ismaamulka Dirdhabalantiisa afka Soomaaliga. barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay daawadayaal in aad habeenimo kasta oo sibti ah aad nala caweysaan isla markaasna aan ugu talagalnay inaan ku casuuno fanaaniinta hadba hadii ahaan lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe. waxaa qayb sidoo kale barnaamijkan fanka iyo suugaanta ka dhinaca dhaqanka oo qayb weyn ka ah maadaama fanku uu yahay mid ay Soomaalidu inta badan ay hidde iyo dhaqan u leedahay waxaana uu furan yahay cid kasta oo markaasi qayb ka qaadan karta dhanka horumarinta fanka hadii aan la dhaqanka iyo waliba sidoo kale suugaanta qaybaheeda kala duwan. haddaba barnaamijka waxaa caawa igu marti ah Mustafa Bashiir oo dabcan in badan oo in kamid ah si weyn aad u taqaanaan isla mar ahaantaasna heesa badan oo caan uu ku yahay sidoo kale waxa garabkayga kala fadhiya waa Muxudiin Xuseen oo asna kamid ah fanaaniinta dabcan iyaguna qayb weyn ku leh dhanka fanka isla mar ahaantaasna heesa kala duwan ayuu dabcan caawa noo soo diyaariyay inuu barnaamijkan oo nagala qayb qaato. waxaan isku dayi doonaa hadii Ilaahay wadilno ogolaado inta aan barnaamijkan ku guda jirno inaan idin soo gudbino kaftan iyo waxyaabo badan oo inta badan aan fanka la xiriiro oo aan ka weydiin doono fanaaniinta caawa barnaamijka martida ugu ah. Mustafa ayaa ku hormaraya. Mustafa ku soo dhaw barnaamijka fanka iyo suugaanta markuu ugu horeysa. waan dhawahay hagaag waxaan rabaa in aan Muxudiin u dambeyn doonaa sidoo kale Muxudiinna adna ku soo dhaw barnaamijka fanka iyo suugaanta in badan oo kamid ah dadku shaqada kana sanayaan caawa kale waqti nasasho lagu jira wax xilliga fasaxo ma habeenimo kasta oo sibda waqtigan oo kale waxaan ugu talagalnay dadka inaan la caawino obday fanka qaybaheeda kala duwan kulleeto Mustafanin fanka in badan ku jirna waa tahay bal horta ka hor inta aan guda gelin howlaha fanka inta aan guda gelin karo maxaa daawadayaasha ku daawanaysaa caawa aad la wadaagaysaa horta waxaan salaamayaa daawadayaasha sharafta leh iyo ismaamulka Dirdhabe intii muuqayga magacayga taqaan hagaag salaan aad u ballaaran waliba islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baa leeyahay waxaan salaamayaa inikana waan salaamayaa hortada fadhiyaa iminka waa salaamaya si fiican hagaag maareeyaha cadana waan salaamayaa hagaag xasan cige oo runtii aad iyo aad annaga xageygana qaali ku ah bulshada Soomaaliyeed ku dhan waan salaamaya. Mustafa ma san tahay waxaan rabaa waan ku faraxsanahay runtii horta inaan ku soo horfadhiisto aan soo horfadhiisano inkastoo ay tahay markii ugu horeysay oo dabcan maaragtaan soo horfadhiisano in badan waan naawilay in aan mar uun Mustafa inaan horfadhiisto bal waxaan rabaa Mustafa intaanan howlaheena fanka horgelin ka hor waxaan rabaa in aan horta bal daawadayaasha aan qac uga siino marka heestay jeclaan leedin kastoo aan ogahay heesaha in badda yihiin in aad ugu daafurto barnaamijka waxaan jeclaan lahaa horta hees nasiimo la yiraahdo madaxa Maxamed Mahdi baa sameeyay laxankana Cumar Aadan baa sameeyay taasaan jecelahay inaan bulshada bal abaan Maxamed baa sameeyay madadaaliyo aan ku daafuro inaan jeclaaday taasaan jecelahay Mustafa sheeko way noo dambeyn doontaa intaan barnaamijkan ku jirnana caawa wax badan baan isweydiin doonaa oo howlad gadaal ay jirtaa bal waxaan leeyahay daawadayaal heestaasi nasiimo oo Mustafa Bashiir noogu talagalay ayna ka dhaxbo qalbiga naxariis tagtaa nabadiyo doga roob na cawdow
naxariis degtaa nasteexoo midaan cugtee hablaha kaana qaystayo aruuradan caashaqeen iyaday qabajisay nasteexoo midaan cugtee hablaha kaana qaystayo aruuradan caashaqeen iyaday qabajisay nasiibka wanaagsan iyo noloshu waa wada jirkeed nuuraay dookhaygiye naftaydani raaligeli nuuraay dookhaygiye naftaydani raaligeli nasiibka wanaagsan iyo noloshu waa wada jirkeed nuuraay dookhaygiye naftaydan raaligeli nuuraay dookhaygiye naftaydan raaligeli nuuraay dookhaygiye nuuraay dookhaygiye naftaydan raaligeli noloshu waa wada jirkeed abwaanka ayaa matnaa ayaa iskiisu abwaan jacayl ku dhacayna ka dhigdhigayaaba xaaskiisu nuur laakiin siima maradan baa la xameeyay di ari abwaan adu jecla abwaan nool hadda darada sagana maxamed banado runtii mahad celinayna waxa mid dadka ayaan waxa la Mustafa in baabe
Mustafa waan garan ku arkay laakiin waxaan yiraahdo de Mustafa wuu galay Mustafa aniga daawadayaasha wadaagto Mustafa adoo iyo xilliga fanku anigu waxaan ku dhashay tawira mid عادي سكول كنت تمسك حافظ جار جوان جاي شنيلا كندري أديسو كان مركان كجاري أم حبضا فانك كل يوم بس يرسون كجرا سامين يرسون كودي أورتا فانك ayuu mataqaan ayuu muujiyaa diiqdiyada idil baad walidu waxaa la yidhi wax ku imanka haddaan qodnaraado ama horumar wacyigelinta wacyigelin lahaa bulshada laakiin aga fahmi habka adeegsiga bulshada karo marka anaku wax safe ya kaga ande ku dhow inta Soomaalida gaar ahaan waxay soo saartaa oo horta anigu nandi aniga kumba wanaagsan wax qofku kuna kumba waxa waliba ana wani fanaan kuna cod aan lahayn iskama samayn karo ilaahay ilaaliyay awaaw intii isku heeso laakiin wali ma la kulantay wala isku dadka bad wax badan boo la door sidaas dugsiga rasho ku jira maxaa ku farato war fayna ku bas aan dhaxda baalan baabi leeyahay hawa igi qabashada waaska waxaan bilaabay ya fanka lagu heeska mar cali kaniga Abdullah ayaa erey waxaa dhacday qaaday ogaatay leeyahay afkiisa ku jiro waxaa la eego aniga ya hawa hawa ana aan ku ah inuu heestii magacii yeeshay burkood habay waxay magacay marka waxa normal laga wadhigaa waxa rabaa in way dhacdaa marka qaarkood way dhacdaa qaarkood heestii ma aha magacay أنا كفاية إنك ما كاي توح كا لا ولا عندي قف عم بعض أبا وفنان عفن ضحلا كوفن قال لنا عكرا نوع دون طلع كل ما إن فن كوير هذا هو فن كاس
intaba midda hore aan ku weydiiyo familka ka dhax isagoo ka galay marka reerkaygu kaga leeyahay marqalado un badan moogta macnaha qof dad imakaas ka jirta macnaha mustafo bari karta oo macnaha soo dhaqan qof dhaqankii dhaqankuna ciidankaagu ku muujiyaa soo Mustafa waxaan rabaa aan dadku weeyaan in badan saado waxaan rabaa muuqaal halka soo fadhiyo muuqaal saarta dadku asaas kala waajisay loo socota waan ku arkayaa laakiin erayga misan erayga maxaa ku caan noqdo maxaa horta diida ma ogtahay baanku waa lacayga famsi aniga ma ee igu yiraahdo qosli kamana cadhooda markaas heesa hore fadhi iminka la fadhi waxaan rabaa soo ka daabaalada daawade baabay Mustafa oo dabcan kullu waana hees ka mid ah loogu dhaqan aad jeclaan ina san
baba ya walaale xishod kaloohi baba ya walaale xishod kaloohi baba yale yani lele dadide hasi'an alay baba yani hada qayda hawrta wana طبعا ان بشير قد أو sidoo kale barnaamijka idin kugu sheegay waxa diin xasna kamid ah ee fanaaniinta oo dabcan galay fankana dhawaan ku sheegay hadii aan mid ah fanaaniinta darbe ku shakhsiyan ana dadkii hore sumna waxa rabaa bal in dadweyne أظن طريقة يعني فن ما صنت هاي فنكا راح تري ما قرأتي بوحش نوع والوايت يلا
kayga oran karaa hor fadhiya oo sayga inta badan iyo gelinta waxa loo isna idiri shanka liga nadi isna meeshayo ku jira DJ Ayub isna baan u horseeday taariikhda kayga hawlus wax uu asoo telefon waqti soo gashay oo galaadu warna oo galay muxuu ku soo noqon su'aalaha abadadu in awilay bal horta halka waxa laga inta hore qonay hor fadhana daaw bal inta ba hees saasina soo hees soo waxa ya ma raxma raxma waxa leh wanacil هو مصير عدكنا سوق أنا يا موسيقى صدا لا قصة على رجع مركينا واحد وذي ومركي بالله علي هاي محمدين طبعا رحمة دونا
Ela entrou mais